madaxweyne Muuse Biixi Cabdi su'aalaha waraysigan waxay noqon doonaan wax adiga reerkaaga carruurtaada iyo noloshaada ku saabsan marka ugu horeysa imise jir baad madaxweyne 70 kamana laba year waa kartay bisha dhalatay maxaa soo maya miiga ku dhashay meeshaan ku dhashay sanadkii ciidan garmus sanadkii hablaayo ee dibaal ahaa meel baa la degay kanti baa la timaa xagee farweyne hoosteeda oo xagee ina farweyne xagga saakixta tiyo loo sii alfarisanayo gobolkee marka maapka Soomaaliland noo sheeg biisaa bulshada magaalada farweyne la hado xadka marka laga talaabo wax yar hoos loo socdo iyo jiilaal arab si loo sii alfarisanayo hooyada ay aabaha reemiya ahayn laba reemiya ma curada tahay ma dhaxdaad ku jirtaa ma garad dambeys ba adaa ku weyn aabaha ma hooyo bay wada joogeen mise eedina way jirtay iyo islaan kale aayo jirtay oo aabaha ilmo dhashay hooyada Allah daayo hooyo cadar way nooshahay madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliland soo maro hooyihiis ma shaatay soo wiilirbi intaas waxay muujinaysaa inuu wiil yarkaay xiriirka adiga hooyo inkastoo wili wiil la dhalay aad tahay laakiin haddana xilkii madaxtinimada iyo wax makaan mashquuliya hooyo guriga degan ma sha Allah ayo ما شاء الله الله بو بركه ما يقرر على لا بعد وين بعد يا عرفتنا وين صار تدور او لبد خير ما هو بكره بعد كل حوم هيسو ما شاء الله امي صار رجع عرفت صدح الماء وير بقى مسجل والله كبد قال هو صدح توصل الماء وير افريتو واقفت مدحوينه marwada madaxweynaha waxa loogu yeeraa marwada koowaad maadaama bax koowaad iyo bax labaad ay jirto xasaskaaga tii adii marwada koowaad ku ah xaska marwada iyo xawaaf gaala wada tala loo keenay haye habla soo dhigay gooy yaani habla kala saar ku simeeyay ayda man marwada wahay hanu kala saarayna qodaan marayku waxay noo keentay marka marwada koowaad iyo marwada labaad adigu ma xaska si oo marwada biyara madaxweyne waxaan nagu maqaalaa hadaan qaldaneen inaad gurigaaga u hoyato sida qofka caadiga ah oo madaxtooyada seexan oo shaqaale ahaan oo soo shaqo tagto taama jirta gurigaaga ka soo kacda madaxtooyada shaqo loo timaada waxa doon soo leeyahay gurigaaga u hoyata oo soo leeyahay markaad muusiga caadiga ahayd ee kulmiye gudoomiyadeedii shakhsiyeed ahayd wala waxaan qof soo tooso أنت أولياء إياه كدوري قف كدوري أروتها هذا المكتاس مجرد بروتوكول وحلبة ما وصل مكتاس وأنا أقول حسين قرشي صار وصل حاجة مع كان مكتاس على الولاد ما مرتو هي عافمات كاجي مركب دوتو على التنسي بعد هذا دوتو ده أنت كيلومتر دوتو أدوينسي هم أشيل سنسي اسمه وايا ما أنت ردتك كفتن كاجي يا صاحب الماضي يكون أول شيء يصير يروح حبوا وحلا بروتوكول marka sheekho meesha waa meel aad iyo aad dadka nin xaqiiqo ka soo qaado marka aadan shaqada madaxweynenimada haynin ee waqtiga caadiga ah maxaad qabataa ma wada ma tabi shaqada ma laga rabo jabiba ma waa tulaga rabo ama mar walba iyo bisis ah ku yaala waaga marka saada riidkada ilaa iyo habeenkii awas dambe hawdu way bis maalin nasato maahan haddana sana kale oo shaqeynaysaa jimcaha kale soo guriga ma joogtid ilmaha jimcaha wada joogaysaa xafiiska tagmaysi laakiin hawlo ku taala waxa kugu dhib badan marka hawlaha caadiga ee dawladnimada laga soo tago maxay tahay oo dadka kala kulanta dadka waxa igu dhib badan ee rukma waxa weeye dhibaatooyinka Geeska Afrika iyo Soomaaliya haysta ee shaqo la'aanta ku kata ee caafimaadku oo ka tahay ee tacliintu oo aad ku adkeeyay kor loo qaado ay ka mid tahay takale Soomaaliland waa jira oo haddana dhibaato gaar ah qaba oo aan baasaboorka soo aqoonsanayno meel ku tago qofku marka dadka da'yar badan in Soomaaliya doonaya in waxbarashada doonaya oo maalba dhibaato marka ay marayso dhibaatada kale waxa weeye jaarkaagi oo labada dhinac labadii goonaya yamana way goonaysaa marka door ka soo marka wad ka walbahataa marka kaliya meel baa soo gaadhay aroobar boorkeeda doonida soo baxday dadka qaxootiga la keenay xageed wararka ka hesha xageed ka geysata systemka dawladda ay warwatay systemka ku keenay
ciidanka meel ma joogo oo dhiisyaasha ma joogaan oo warkii lasoo soo xidhaayo waxa Soomaaliya ayay gubanaysa oo maalin walba qarax iyo dhibaato iyo inta joogta iyo shaqada kala dilay iyo kala buuqay inta ma qood galaysa soo gareynayso dada subax markuu waaga bariyo oo salaada fajr tukato inta waxay dhar warka xatoosha isla balaashay aroor kana ka qarax waa gartay markaad salaada tukato soo fariisato waxa kugu horeed qabat maxay tahay horta waa ducaysta ma sha Allah maadun baa ducaysaa mise dalka iyo dadkana u ducaysaa horta marka hore nafteeda ducayo ilaa fiican cadaabtii oo naga dambaysa hadii aniguna hadal badan marka horta bal ilaa hawla faayada la baxsana marka dambana qoyska iyo dalka iyo dadka duceeyay wax balwada mali ها هذا الضوء بالوداد وهذا تصدق بدأنا شوية قبل شفت من عين سؤال أنا كويتيو dadka aan ku aqoonin aan kula falgelin sideedoo kale aniga dad wanaga sheekaysanay waraysi intaan bilaabin wanaga iska kaftameynay waxa laga yaabaa inay fikir kale ka haysa musabbiix kale dadka fikirka kale ka haysta nin xirxiran askari ahaa marmar qaarkood giirjiro oo miyiga u noqonaya jawaabtaad u haysan maxay tahay inta waa runtood haye inta waa runtood haye gabayga qaasim taqaana qaasim Allahu naxariista gabayga weynaa waan garan macaan qaraab gabayga marka macaan iyo qaraab isku jira tahay qof loo marka qof wuxuu arkay anigu xun dabeecad xun oo dagaalamaya la yaab ma wuxuu arkay anigu wanaagsan oo farxaan oo kaftamay wuxuu arkay anigu deeqsiga oo boqol sooreeyo oo la yaab wuxuu arkay anigu khayr gacanti go'ay oo isaga oo maanta la shaxay la hadi waay wuxuu arkay anigu oo gabayo oo dhaqanka aad u qaan wuxuu arkay anigu reer magaalo jaajana maxaa bini'aadamka isku jira halka doonta waa gartay su-aasha ugu dambe marna ku weydiiyo hiwaayadaada iga waran ma gabayaad jeceshahay ma heesaha dhegaysataa kubadda ma daawataa wax hobbi adi aad jeceshahay ood ku mashquulsho ma jirtaa hobbi horta daad ma socda hagaag inaga Soomaali ahaan hobbiga iyo meelaan kala qorab waxay loo jiray da' waliba waxay leedahay waayaheed markuu ninku yar yahay hobbigiisu oo adadu hore soo markuu joogo soo soo hobbiga oo de energy waya oo waxa uu jecel yahay oo nolosha dhan baa ka horeysa oo gudaalay markuu meel dhex joogo garmadoobaha joogo wuxuu taagay waqtigii talada joogay marka wuxuu bilaabay mushkiladaha halisa soo dhacay marka taana wuxuu faraya mushkiladii marka garmadoobaha yahay ma bisla oo kan kale murmayaan buu shiilaya oo wuxuu doonayaa intiisa la qaato markaad ashawdo الوقت أبوك ده وهي بنارك وإحنا قلنا يعني واحد كستوي ما ذاك في السرايا أو قبو أو حتى هذا الدليل تقول جسمك أنا عارف جسمك هذا على قياسي هي هو بيجان وإيمانه ما حد عشان وقصوا هي ما كنت ده قال الحوار قدام الحوار قدام مش عليها المكان وحقون ولا سكر وكان واحد شو ده دعاء هو بيجان ودعو إنه هو صار بس كبد هسه شعير قبيح هو قبيح هذا الشتري ولا يسقط هذا حدي من لا مرمو تايد إنه مال برتقال مركب واحد تشوي وصار بس إنه عمر اختي وريا على إله الرجال وراخنا قدام بس هذا الكده هذا بسوقينا يعرف وجه بقنا يقول إلى آخر ما شاء الله ده ما شوي هذا آخره بتاعي حدها آخرنا ده إله هذا ترجمة قرآن أخص سيسكتين قرآن كله كسر ما شاء الله هذا ما ذكر قول واحد برتين ما راح يقول في ما برتين ما شاء الله جامع علماء ذهب واحد ولا له أحمد شفتوا ما شاء الله يتواد الله حفظ خبرتي أنتوا سقران كي مدرسة يو ولا ضمب مرضى ما ليس براء قرض به مركورة قول له حمر مدحوين آدم كلهم هاد علينا يا الله كحفظي الدنيا قربوا أدون وصل سيكرنا في السلام عليكم سلام ها وهو يعني